kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment. Waxaan soo gudbinaa dhacdooyin kala duwan oo arrimaha taagan ah kuwa madadaalada vlogyo ayaan soo duubnaa si aan u gaarsiino mujtamaca nagu tixan. Markana waxaan soo gudbinaynaa xubinta maxaa la ilaaway. magacyada ay Soomaali badan isku bixin jirtay qarniyadii 19aad iyo 20aad ayaa waxa lagu bixin jiray hadba dhacdada uu ku soo aado ama maalinta uu ku soo beegmo ilmaha dhashay iyo in laga dhaxlo qof muhiim ah oo bulshada ka tirsan taas oo sami loo yaqaano. waayadan dambe waxa bulshada Soomaalida ku badanayay in ay la baxaan magacyada Carbeed iyo waliba magacyo kale oo casriyeysan, waliba magacyo qaarkood aanay ujeedo iyo meel aan loogu hagaagaba lahayn. mid ka mid ah dadka Soomaaliga si fiican u bartay ku dhaqmay miyigana muddo soo joogay ayaa in magacyada la isku bixiyo laba hab ku tilmaamay: in magac la iska dhaxal yahay oo qof wanaagsan laga daydo iyo magac ku salaysan dhaqanka Soomaalida. markaasi Soomaalida ayaa ah dad reer guuraa waxa ayna inta badan caruurta u dhasha ugu magac dari jireen magacyada xaaladda taagan iyo xilliyada lagu guda jiro. haddaba waxaan eegaynaa magacyadii hore ee la ilaaway, waxaana ka mid ah Hiirad, Geedi, Dirar, Ogle, Haybe, Soodi, Weerar, Bulxan, Guhaad, Laayaan, Aar, Cudbi, Cajabo, Xaadsan, Haweeye, Cawrala, Cambaro, Sareedo, Ceebla, Isniino, Axado, Muxubbo, Guure, Dayax, Colaad, Maano iyo magacyo kale ayaa ay Soomaalidu la bixi jirtay, iyadoona hadda ay bedeleen magacyo kale oo casriga la jaanqaaday sida la tilmaamo, balse macnahooda aan dadku badankood ogaan karin. qaarkoodna wadamo kale ayayba la galeen oo Hindida iyo waliba dalalka reer Yurub ayaa magacyo laga soo minguuriyay ay caruurtooda ula baxaan. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta maxaa la ilaaway. anigoo Xasan Xayi Cabdullaahi ayaa soo saaray idinlana socodsiinayay, waxaana ka daawanayseen channelka Salma Vlog and Entertainment. inta aan muuqaalkan oo kale dib isku arki doonno daawadayaal, nabadgelyo.